لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد markuu ugu hore ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale oo noo nicmeeyay nicmooyinkiisa aan la soo koobi karin. rabbi subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay wa amaa binicmati rabbika faxadith. ikhwaanii, kelimada waxay ku saabsan tahay maa bacda ramadaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga aqbalo acmaashii aan soo qabanay bisha barakaysaneed ee ramadaan. bishii way dhammaatay. bishii hadday dhammaato waxaa la rabaa in oo adig gadaal aan u gurinin. horta waxaan xasuusinaynaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabigeena wuxuu leeyahay qofkii ramadaan soomo oo lixda bisha shawaal uu raacsiiyo wuxuu la mid yahay qof sanad oo dhan uu soomanaa. maadaama fursaddan waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto. shawaal dhexdeed isku day inaad soontid lixda. ramadaankii uu dhammaaday martii uu ahaa dadkii ka faa'iidaystay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa miisaanka ha idinku kabo. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa acmaashii ha idinka aqbalo. qofkii oo bisha aan ka faa'iidaysanin hal shay ayaan leeyahay. sababtoo ah dad badan aan ka faa'iidaysanin bisha. dada taraawixii aan tukanin, dada sadaqa aan la bixin, dada ramadaanka oo dhan waxaa waaye oo ayaga oo fiirinaya ramadaanka uu iska baxay. dadkaasna waxaan leeyahay shaydaan ayuu ku duubsanine ilaahay naxariistiis ha ka quursanin. ha isdhihin bishii ramadaan kama faa'iidaysanin khalaas waay meesha wax kuuma yaalan. shaydaan dhaga uu kaaga akrina muxuu ku leeyahay bishaan wax meel kuuma yaalan, ma faa'iidaysanin, sidaada kulaa buu ku leeyahay. ha quursanin, gadaal ha u guranin qofkii bishii ramadaan aan ka faa'iidaysanin. ilaahay qur'aanku wuxuu ku leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru الdunuuba jamiica inahu huwa algafuur الraxiim. laa taqnatuu min raxmat illah, yaa laga quursanin naxariista ilaahay. ina allaha yakfiru الdunuuba jamiica.